بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalayaal waxaa soo gaadhay waqtigii programkeennii aan kula taliya talo ma qaadan talawati allah subxaana watacaala. alaaba wuxuu inoo baxaa maalin kasta saturday saacadu markay tahay 2 p.m. central amaba 8 p.m. UK, 9 p.m. yurubta kale, 11 p.m. magaalada barakaysan ee maka almukarama. walaalayaal insha allahu tacaala waxaad kusoo dirsataan abudalxa1@gmail.com. abudalxa waa APUDALXXray alpha number 1@gmail.com insha allahu tacaala. insha allahu tacaala maalin kasta oo saar dhaya ayaa laydinka jawaabi doona haddii allah subxaanahu watacaala uu yidhahdo. walaalaha gebi ahaan bay soo dhawaaday insha allahu tacaala. sheekhuna alfaadil kelmadayadii insha allah aad nooga hormarin jirtay insha allahu tacaala intaynaan guda gelin falyatafadal mashkuuran wamaajuura. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله، كلمة أن دون يعاوى إن أنكار مريو موضوع أن إلتلي وأنكلت لنا ثلاثة مقاضا، وموضوع أحد علماء المعاصرين عالم كمذا كلمة وقري runtii aad iyo aad ii cajabisay. waxaadna ogaataan kelimaadka aan idiin sheegayno ma aha wax annaga jeebka yaga iyo ikhtiraacka yaga ma aha, waa waxay culamo muslimiina maskaxdooda ay ka miireen ayaanu idiin turjunnaa. runtii anigaa iska hadlaya dabcan marka aniga ka hadlayo, oo weliba wixii aanu ka fahamno laga yaabo weliba waxaan turjumayno inaan khalad aan turjunno. nas'alu allaha alcafwa waalcaafiya. horta middaa in la ogaado waa qodob muhiima. axad alculamaa ayaa wuxuu qoray run ahaantii kelimo aad ii cajabisay. kelimadaas ayaan jeclaaday inaan caawa ka hormariyo barnaamijka ila taliya waan kula talina talaba ma qaadan. kelimadaa waxaa la yidhaahdaa kayfa tuwaajihu humuumaka wa gumuumaka. sideed oola lagdami kartaa, sideed oola lagatami kartaa ama u waajihi kartaa ama aad oga hortegi kartaa walwalka iyo walbahaarka iyo humuumta qofka muslimka ah haysata. run ahaantii markaad ummadda aad fiiriso caalamku siduu u nool yahay ayaa waxaad garan doontaa, ama adiga gudahaaga iyo daakhilkaaga aad eegto ayaad kelimadan qiimaheeda garan doontaa. waa haddaad dhaqan geliso, waa haddaad tadbiiqiso, waa hadday qiimo kula yeelato, waa haddaad ku camal fasho, waa haddaad manhajul xayaa aad ka dhigato. markaasaa sheekha kelimaadka wuxuu ku bilaabay iftitaaxa kadib: waclamuu ana dunyaakum majbuulatun cala alkadari wa cadami asafaa faman da aladii lam yusab qatu waman aladii laysa ladayhi humuumun aw gumuum. wuxuu yidhi waxaad ogaataan muslimiinay walaalayaal, waxaad ogaataan adduunyadan aad arkaysaan ayada dhanba waxay ka samaysan tahay waxa loo yaqaano kadarka iyo noolal calowsan, noolal dhooba leh, walwal iyo walbahaar. biyo nadiif ana ma yaalaan. waa kuma qofka ayna musiibo ku dhicin, waa kuma. markaasuu mar labaad su-aalkeena wuxuu yidhi waa kuma qofka aan walbahaarsanayn ama meel aan ka walbahaarsanayn. waxaad egtaa buu yidhi hareerahaaga waxaad arkaysaa mid xanuunsan, waxaad arkaysaa mid ay ka jajaban tahay, waxaad arkaysaa mid gurigiisu uu gubanayo oo khilaafaadku uu gubayo, waxaad arkaysaa mid madluum ahoo laga gardaran yahay, waxaad arkaysaa labo isqabta oo maanta oo dhan iska lulata ayaad arkaysaa, waxaad arkaysaa reero fara badan oo aad moodo inay gebi ka sii laalaadaan. sii wad adigu. khaamisan saadisan saabican. waa guriga maanta ka badbaaday mishkilaad. waa gurige waad garanaysaan inuu yar yahay. intaa sheekhu marka uu su'aalo keenay ayuu 7 qodob oo daawo ah keenay. 7daa qodob baan doonayaa
wiilka ama gabadha fiican ee fariidka ama fariidda ah doonay una soo xaadirtay meeshan inay wax ka faa'iido wax anfaca adduun iyo aakharaba inay sajilato oy qorato oy fahamto oy ku dhaqanto anigana kow baan ahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can qodobka koowaad ee walwalka iyo walbahaarka iyo humuumta xagga caafimaadkaaga iyo xagga carruurtaada iyo xagga xoolahaaga iyo dhaqaalahaada meesha aad joogto iyo waddankaad joogto kaa haysta xagga diraasada iyo waxbarashada xagga iimaanka daciifka ah qaraabada iyo qoyska isku soo dar adugu wax alla wixii humuum ah oo adiga xagga diintaada kaaga imaanaya xagga caafimaadka kaaga imaanaya xagga bulshada kaaga imaanaya xagga khaasatan qaraabada kaaga imaanaya ninkaaga iyo zawjkaaga iyo zawjadaada iyo carruurtaada kaaga imaanaya isku soo daro 7 qodob baad qoran biidni illaah qodobka koowaad aliimaanu bilqadaa'i waalqadar waa inaad si run ah oo dhab ah waa inaad u rumayso ilaahay qadihiisa iyo wuxuu xukumay tabaaraka jalla wacalaa qofka mu'minka ana sida laga doonayo waa nooca waana qodob ka mida arkaanu liimaan wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi keliya waxaad ogaataa adduunkan waxa ka dhacayo oo dhan ilaahay waa ogyahay ilaahay asagaana doonay tabaaraka wa tacaala wanaagga iyo khayrka oo dhanna asagaa doonay waxa sharkeed arkaysaanna xigmad asagu og yahay waxa ku duuganoo xigmada uu og yahay ayuu alla u xukumay tabaaraka jalla wacala wa in kaana addoonku iraade iyo doonid uu leeyahay asaguna uu sameeyo doonay dooniddaasi doonidda alla ayay hoos tegaysaa tabaaraka jalla wacala sidaa daraaddeed qabla an yakhluqa asamaawaati waalard b50,000 sana yacni 50,000 oo sano intaan adduunka samaawaadkii dhulka la abuurin ayuu alla xukumay famaa shaaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun qaala calayhi asalaatu wassalaam aliimaanu an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وإن الرميسنتهي أن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون الله تبارك وتعالى وحي دعي وحا دعي دونه إيا وحا إنو دعينا صورة قالها إنها دعي لها صدو دعي لها ألا ويقان ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون أي رب الله تبارك وتعالى قضبك وامدك كوبادوي قضبك لبد الصبر على المصائب نبك كوغو إيمانية إن تصبرت مكاسو الشيخ كلمة يا بدن بالحيري وهو من أعظم الأدوية لمواجهة المحن وحيري داول لقاته كريني لقاته هي الشروب لقاته مدك أقوين ومصيبوين كاللقاقه هرتاقوا والصبر كبير نعم وانا مد اللقمان مركو ويلكيس أدر دارمي وكيري واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزل الأمور وحيري وحي كو أصيب كو صبر قفك مسلم كأه وحي كو دعا أو أصيب إنو كو صبره سويدن ودكتي إنمان دويد فحالي ميت كي أودن بيي كي لسي وذي طلع دفير المير أو إسكول كي سدقنا يوساك صوك اللهي أو لغيابو إنو والدكي محالي هذا saacadihii uu soo rawixi lahaa la gaadhay oo ka waran loo soo sheegay ilmihiisii inuu nin intuu seef la soo dhaxgalay uu maxaa la yidhaha qoorta uu kaga jaro masalan waa musiibo nacam waa musiibo waa xanuun waan oga tacsiyeynaynaa aabbaha iyo hooyada ay dhibku ku yimaadeen iyo hooyo kasta iyo aabbo walba uu dhibku uu ku yimid walcajiib kelimaan ka dhihi doonaa mar kelimo magaceeda la yidhaahdo horumarka muslimkuna waa irhaab dilka gaaladuna waa waali kelimada macnaheeduna waxay noqon doontaa cunugii yaraa ee maraykanka mise canada waa mid baan waan laqsanahay yacni muddo hadda bil iyo meelaha laga joogo iyo bil iyo bar intuu soo ikhtiraacay saacad soo ikhtiraacay oo soo fikiray oo soo sameeyey isagoo doonaya inuu macallimiintiisa kaga farxiyo
maxaa la yidhahdaa bambal loo maleeyey ee asagii la xiray marka ninka muslimka horumarkiisu waxa weeyaan waa bamba iyo waa sun iyo waa irhaab ninka maxaa la yidhahdaa dhowrka boqol meesha badda ugu galay Norway iyo midka dadka laynaya Oklahoma laga soo bilaabo intaasoo dhanna wuu waalan yahay maskaxda lagaga jiro caadi ma ahayn wasbir calaa maa asaabaka ina dalika min cazmi alumuur sabarku marka ugu horraysa waa sacab ogaada walaalayaal sabarku marka ugu horraysa inaad shay ku sabartaa ood musiibo ku sabartaa waa arrin aad iyo aad sacab u ah walaakin idaa cawadta nafsaka calayhi haana wasahul haddaad naftaada ooga dhigto oo dhaqan ooga dhigto inaad naftaada musiibada ku imaanaysa aad ku sabarto ood musiibadaa ku sabarto ay kuu fudaan shaacir baa wuxuu yidhi الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل صبرك وحيري سيدا مجعي سوا كم موقتا وشيء آدي أخران أو واقع عربو يري لكن مرها كدلانيا إيا وحا لغا فائدة يا ملطك وكم معاني هي سهيل بن سنان رضي الله تعالى عنه حليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم قفك مؤمن كأهل لياضي أرنكي سؤرنا وخير arrinkaasna lagama helo sifada ilaa qof mu'mina ma ahane haddii qofka mu'minka ihi ay ku timaado wax farax geliya rabbi buu u celinayaa shukriga iyo mahadda waa arrinkaana waa khayr hadday ku timaado wax dhib u keenana waa ku sabraya arrinkaana waa khayr kaana waa qodobka labaad qofka doonaya humuumtiisa iyo walwalkiisa iyo walbahaarkiisa inuu ka adkaado waxa weeyaan labadaa qodobeen soo marnay meel ha ku qorto oo ha ku dhaqmo ha ku camal falo qodobka saddexaad النظر إلى ما عندك من نعمة بل وحاسفي عنو إكتا أو سفي عنو فيرسا العاصمات قبتنا أتكو إكتا العويرن آدم كو إيجين بل وحا إلهي كسيي أو النعمة وحا إلهي كسيي أو خيرة فأنت مسلم وأنت صحيح مبصر تسمع وتمشي وغيرك أعمى أو مقعد أو أصم الله أكبر فير إلهي مسلم مكادئ caafimaad buu ku siiyey laba indhood wax ku aragto ku siiyey dhaga aad wax ku maqasho ku siiyey luga aad ku socoto ayuu ku siiyey ghayrkana waxa laga yaabaa inuu indhala yahay salka ku siqay ama dhagala yahay waxa loo baahan yahay bal ni'amku alla ku siiyey inaad eegto sidoo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم والحديث في الصحيحين والعدة إذن كهوسي سفيرية والعدة إذن كحول يرئيغا وردتك إذن كنقال يرئيغا وردتك إنت دتك إذن ككرية هايجينا حاجة مادة إيا الدنيا لكن عبادتها طاعتها تسابقها وسابقوا وسارعوا فاستبقوا الخيرات هو متكلوي إن واحد يذكره سيسأل إكتان أيا أدو أو حقيقة يعني إن إذا النعمة إلهي كبر تبارك وتعالى ولكن مسلم كأهو وحاد في رسامي دكتاله أو وحاد في رسامي دحداده وحضر كيسامي الله امتحامي وحضر كيسامي مصيبة كل علي وحضر كيساقوري لغا أويو لغا دنتي waxaad arkaysaa mid ay ilintu ka daadanayso meeqa musiibo ayaad arkaysaa laakiin meeqa ayaa ku sabarta falasta anta wahdaka fi almaydan cidda imtixaaman kaliga ma aha bal musaabuka anta binisbati ligayrika qaliil adiga marka la fiiriyo waxa ku haysta dad badan baa ka daran badana mid mariid ah oo xanuunsan oo sariir saaran intaas oo sano oo aan midig إيا بلح من نئس جدين كريم يا الله ضدنا من مريضة والنظر في عيوبك وتقصيرك ما الله يمغلى علماء الله
الاستغفار والنظر في عيوبك وتقصيرك إن أبصير سعيبها الليلة عيبها هذا قف والبو انت عيب الليلة إن أبصيرس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير شنطة قضب ولا ليال وحاول إياه قضب بكر لكن والله يابا إنه وقت ويقابته لكن وحن دون يا إن عنده الدعاء وأنا قضب رنتي قوني إن لوغها الله أباها إلهي إن برنه تبارك جل وعلا قضبك أقدم بيت الضباب وإن لا تشنددك خبرة له أو أنك قاضنا وحي النصيحة قال تعالى وأمرهم شورى بينهم ولا ليلتضبضا قضبا عاون نور دوري عالم من علماء المسلمين بانا صوكوري وانا تضبط قضب أهمينا همومتيني مروقدينا ولا ليالك قيب قاضنا يإني نقسوشو وقضاها إيا قدر كرومينا سيدنا ودباتوينك أنكو صبرنو ونعموينك الله ونوغري وندبو أغنو وإنا نوغانا وحان دبو نسوغاري إن أجنا لغسينا إيو وإنا عيبهن دب أنو أغنو sida oo kale waa inaan ducada badino qodobka ugu dambeeya waa inaan la tashano dadka ahlu cilmiga intaasi waa inta aan caawa ka hormarinay kelimadeena Allah waxaan weydiisanayaa kuwa ku dhaqma oo ku amal fala inuu naga dhigo wallahu a'lam haddana waxaan ku wareejinayaa howlwadeenada barnaamijkan qaaliga ee qiimaha badan ee la magac baxay ila tali waan kula talinay talada